السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديارة إيرباص A350 وديارة وفي عن عالمك حق إيبك. ديارة إيرباص A350 waxa uu sameyskeedu ka kooban yahay 2.5 milyan oo isku dhis oo ah qalab yar yar. sidoo kale farsameynteeda waxa ka qayb qaata ku dhawaad 1800 oo xirfadle ah. haddii aad nagu cusub tahay si aad ula socoto fiidiyoyada dambe fadlan saar subscribe. diyaaradda A350 waxaa markii ugu horeysay la farsameeyay sanadkii 2004 taas oo ay ahayd casriyeyn lagu sameeyay nooca diyaaradda A330. qaybaha casriyeynta lagu sameeyay waxaa ka mid ahaa xagga mashiinka, sidoo kalena waxaa lagu daray baadad cusub oo ay ku duusho diyaaradani. sanadkii 2006 Airbus waxay u bedeshay A350 extra wide body oo ah mid lagu daray qaybo casri ah. sidoo kale waxaa lagu weyneysiiyay xajmiga ay diyaaradani lahayd. diyaaradda A350 waa diyaaradii ugu horeysay ee Airbus ka samayso waxa loo yaqaan carbon fiber reinforced polymer oo ah nooc ka mid ah plastica. shirkadaha waaweyn ee isticmaala Airbus A350 waxaa ka mid ah Qatar Airways, Singapore Airlines, Cathay Pacific iyo Lufthansa. diyaaradda Airbus A350 waa diyaaradda ugu fiican xagga iibka ee caalamka. diyaaradda Airbus A350 waxay samaysaa duulimaadyo badan xagga caalamka oo iskaga goosha adduunkan aynu ku kor noolnahay. xarunta dhexe ee shirkadani waxay ku taallaa dalka Faransiiska. beluga Airbus waxay xambaartaa qalabka diyaaradaha ee ay soo saarto ama ay farsamayso shirkadda Airbus. qaabka diyaaradda beluga waxay u eg tahay nibiriga cad ee ku jira badda. qaabka waxa u diyaariyay farsamayaqaanada dhisay diyaaraddan. waxa ay qaadi kartaa beluga 1500 oo cubic meter oo ah qalabka lagu farsameeyo diyaaradda A350. diyaaraddan qalabkeeda waxaa la iskaga keenaa dalal kala duwan sida dalalka Faransiiska, Isbaanishka, Jarmalka iyo dalka Ingiriiska. tusaale ahaan, qaybta hore ee maamulka diyaaradda waxay ka timaadaa dalka Ingiriiska. baadadka dambe sidoo kale waxa uu ka yimaadaa dalka Jarmalka, halka baadadka ay diyaaraddani ku duushaa isla sidoo kale ay ka yimaadaan dalka Ingiriiska. qaybta dhexe ee ay passenger-ka ama rakaabku fadhiistaan waxaa lagu farsameeyaa dalka Isbaanishka.